السلام عليكم ورحمة الله كسو دوادا كلية ستار كولج waxaan ahay macallin Mustafa waxaan ahay macallinka idin kala socodsiin doona ee online-ka kala socon doontaan qaybta waxbarashada ee computerka waxaad ogtihiin in maanta uu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee meel kasta looga baahan yahay in laga isticmaalo ama aad ku isticmaasho ama aad taqaano computerka waxaan ku qaadan doonaa ku dhigan doonaa muddo kooban oo 3 bilood ah waxyaabaha computerka aan ku qaadan doono waxa kamid ah 6 barnaamij ee computerka waxaanay kala yihiin Windows maxaa ku qabanaya Windows wuxuu ka caawinayaa isticmaalka guud ee computerka inaad computerka nooc kasta oo computerku noqdo aad isticmaali karto haddii ay tahay desktop iyo haddii ay tahay laptop programka labaad waa maxay waa Word waa waxyaabaha ugu isticmaalka badan ee meel kasta iyo qof kasta uu u baahan yahay inuu isticmaalo Word waa ka wax ku qorayso waa ka buugaagta lagu sameeyo waa ka wax kasta oo aynu akhrino aynu ku qorno aynu ku isticmaalno ku qorno programka saddexaad muxuu yahay Excel waa programka saddexaad waxa uu ka caawinayaa ama aad ku baranaysaa sida loo xisaabiyo dhammaan xisaabaadka aad uga baahan tahay computerka ama xisaabaadka isticmaalaan dhammaan meheradaha wax iibiya saleski iibkii accountadii iyo transactionadii aad ku samayn karto Excelka programka afraad wuxuu yahay Accessku waa barnaamijka afraad ee computerka Accessku waa database waxa weeyaan system meherada ay ku shaqeynayso meheradu noocay doonto ahaato dukaan bakhaar school supermarket noocay doonto ahaato Accessku muhiimadda uu leeyahay waxa weeyaan in meheradii buuga ku shaqeynaysay aad u soo wareejiso xagga computerka Accessku markaa waxa weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku baran doono qaybtan waxbarashada ee computerka barnaamijka shanaad waxa weeyaan PowerPoint waxa uu kamid yahay barnaamijyada loogu isticmaalka badan yahay ee ay u baahan yihiin dhammaan arday kasta dhammaan macallimiintu waxa loo isticmaalaa oo loogu talagalay in wax lagu baro dadka ama lagu soo jeediyo waxyaabaha loo yaqaano presentationka sidoo kale barnaamijka PowerPoint-ga waxa loo isticmaalaa oo loogu talagalay in lagu sameeyo xayeysiisyada ama sistemadan loo yaqaano imtixaanaadka qaadee loo yaqaano quiz-ka ee sida kasmaal oo kale waxa isticmaalaysaa PowerPoint barnaamijka ugu dambeeya ee lixaad wuxuu noqon doonaa barnaamijka loo yaqaano Publisher waxa loogu talagalay oo loo sameeyay in lagu sameeyo lagu design gareeyo dhammaan wax kasta oo la design gareynayo tusaale ahaan saad u sameysay lahayd shahaado invitation card business card ID card waxyaabaha wax kasta oo la design gareynayo waxa lagu design gareeyaa Publisher laakiin waxa aad loo isticmaali jiray waayadii hore ama waqtiyadii intaanay teknolojiyada iyo softwarada casriga ay soo bixin Photoshop intuu soo bixin baa aad loo isticmaali jiray haddase isaga laftigiisu kama maqna isticmaalka inta waxa ku raaca in laga caawinayo sidii aad speedka waxaad ku qorayso aad u kordhin lahayd adigoo isticmaalaya barnaamijka loo yaqaano Mafiska waxa sidoo kale ku raacaya inaad isticmaasho ama aan kugu tababarno barnaamijka loo yaqaano Outlook oo isaguna faa'iido fara badan leh waxa inta ku raacaya oo ugu dambeeyo barnaamijka saddexaad in lagu baro computerka gudihiisa furfuridiisa iyo xiriirdiisa iyadoo oo si gaar ah loo furfurayo oo lagu duubayo oo lagu tusayo adigoo gurigaaga jooga oo lagu duubayo lagu tusayo qayb kasta oo computerka gudihiisa kamid ah waad ku mahadsantihiin sadnala soo xiriidaan waxaanu nabadgelyo kula dadaalaynaa inaanu idinka xaqabtirno baahida aad uga qabtaan computerka السلام عليكم